بسم الله الحمد لله صلى الله عليه وسلم محمد وعلى آله وسلم galabta waxaan usoo galay hadeed arrin had iyo jeerna dhacda laakiin hadeed oo yani ta'hiir gaara iska leh gabadhaasina ina alman ah oo la dilay oo weliba meeshii oo ammaan la bidahayey lagu dilay ayaan darteed usoo galay awalan waa ka tacsiyeynayaa qoladii qabtay iyo qoladii waa la ii sheegay gabadhu inay malnala qabay uurna lahayd waa la ii sheegay ilaahay sabarna ha ka siiyo iyadana insha allahu tacaala ilaahay rajaan uga leenahay in ilaahay maaragtay uu shahaado uga dhigo ayada iyo dadkii muslimiinta ahaayo saas dulunka lagu dilahayo iyo gardaradaba ilaahay saasaan uga rajaynayaa kolley gabadhu qofka muslimka cala alaqal uun salaadeeda tukan jirtay waa la ii sheegay waana saas waaye marka waa ka tacsiyeynayaa meel kalena hadeed waa iga soo gashay dadka maalin walba waa la dilaa waana dhintaani maxaa gaarahoo oo iyada kugu gaara laba arrimood weeye awalan aabaheed waan isnaqaanay alman meel baan mar deriska ahayn oo maaragtay motoor ku lahaa nin oo dhalinyarada aruuriyo oo da yacni hoostiisa aada ugama warqabin oo hadda maaragtay yacni kolley in talyaani soo koriye waa maqlay marka muxuu ah laakiin hoos ahaantiisa ugama warqabin laakiin in uu dhalinyarada ururiyo oo wax la qabto oo wax u qabto oo inuu ahaa waa ogaa maalinaan meel ku kulannay marka timuu lahaa xoogaa si ah oo iska maaragtay markaasaan iri wareedhe tintaan ma tintaadiiba mase waa tin ergisa may waa tinteedii oo dhaho maxaa saatan ugu samaysay maxaa ku samaysaan dhaha markaasuu yidhi waxaan ku sameeyuu yidhi oo wax kale kuma sameyn oomaan ku dhaqay buui marka adiga calaa kulli xaal marka saasay ahayd intaasaana dhex martay wax wara xoogaa yara marka waxaan war markii oo dee markii qusliga maxaa ku samaysaa marka carabi ahaan u garan waaya umalaynaya yaal talyaani iska ahay marka ma uusan garan marka aniguna hadda siima kuma sii balbalaarin oo iska dhaaf marka intaasaa la dhex martay waxaa kaleetoo jirta qoladan hadda gabadhaha u dhashay oo gabadhan cabdisalaama qoladan reer sheekh reer xaaji aadan inima dad sidaan xamar u imid aan asxaab ahayn oo dadaan asxaab nahay macal mukhtaar iyo wiilashiisa iyo axmed iyo kulli yani cabdisalaamka laftiisa iyo kulli reer xaaji aadan oo dhan dadaan asxaab ahayn ay ahaayeen oon asxaab nahay oo xataa ragga qaarkood axmed sheekh macal mukhtaar iyo kulli meeshaan waa iigu yimaadeen alxamdulilah waa dadaan asxaab nahay waay alxamdulilah marka halkaasna waa iga soo gashaa marka dadkii oo dhan waa uga tacsiyeynayaa insha allahu tacaala haddii reer abti tahay haddii reer aabo tahay reer maaragtay dumaashiyaal iyo ninkii qabay iyo kulli waa gawaartii waa la socdaa uga tacsiyeynayaa taasna waa intaas waaye waxaa kaloo marka jirta oo iyadana xoogaa warkaba sida badanaa maaragtay inaan soo galo oo igu kalifay waxa weeyaan yacni meeshaan weliba meesha gabadha lagu dilay meeshii maaragtay dee oo hadda uun dadkaan isleeyihiin waa meel ammaan waaye waa laba arrimood oo marka meel ammaan waayo ammaankiina laga ilaaliyo haddii la islahaa inaysan warkaasu sax ahayn meeshii waa ka soo baxaysaa awalan horta dadka annaga ka soomaali ahaan waa naloo wada col waay waxaa inta lala dilana hadda uma horeyso weligana waa lala dilhayey aniga xataa 2 gooraan isku dayay in lay dilo oo marka dee cadow badanaan leenahay midda kalena waxa weeyaan dadka
yani waa wax ujeeddo laga leeyahay dadka in oo maaragtay miro kabriid laga dhigo. miro kabriid waa taqaaniina umalaynayaa, waa wax isku wada gana jaran oo maaragtay aan kala dheeray. marka yani qofkii la isleeyahay hadda ama waa soo bixi karaa ama waa soo baxay, in maaragtay yani sidii bahalkii maxay ahayd munushiibiyada geedaha maaragtay magaalada ay ku tallaalaan, markii la waraabiyo geedkii kor usoo baxay u gooyaan, saa loo ilaaliyo. aada moodaa in maaragtay annagana sidoo kaleeto naloola dhaqmahay. marka kiiskaas waa baraarujin lahaa, oo waxa weeyaan innaga iyadoo hadda aan kaligana ku ahayn muslimiinta hadda caalamka jooga oo dhanna de cadow waa loo wada yahay, meel walbana waa lagu dilahayaa. bal xataa waxaa dhacday hubkii adduunka qolo walba hubkii ay maaragtay samaysay in lagu tijaabiyo ayaa taala, in hubka lagu tijaabiyaa taala. oo hadda yacni meel walba hadda caalamka ay joogaan cadaawad aan kala har lahayn, laga soo bilaabo haddee maaragtay bahalkii Myanmar, China, yani dadkaas oo la yidhaahdo buudiyiinta waxa ay ku hayaan muslimiinta waa la garanayaa. Myanmar iyo Chinaba labadaba waa la garanaya. oo Igor meeshaan la yidhaahdo dadka waxa lagu samaynayo Chinese laftiisa ay ku samaynayaan waa la garanaya. meel walba maaragtay islamophobia iska taala, meel walba in la dilo waayo. Ciraaq hadday tahay, hadday Yemen tahay, hadday Soomaaliya tahay, hadday Afghanistan tahay, meel walba saasa in la dilo waayo. hadday maaragtay Suuriya tahay, hadday Libiya tahay, hadday yani meel kasta marka dadkaas in la dilo waayo. si kasta oo bahalkii maxay ahayd ay ku suuragal tahayba, ilaa waxa weeyaan waa hadda waa looma ooyaana la dhihi karaa. waa looma ooyaan alli qofka muslimkaa waa looma ooyaan, haddana Soomaaligu waa looma ooyaan waaye. cadow badanaana kuna hareeraysan, dhex joogana korna ka haysta. marka waxa weeyaan in oo markaasu waa caay. waxaa kaleeto marka meesha ku jirta hubka gabadha loo isticmaalay, hubka gabadha loo isticmaalo hub khaasa waaye. dad badanna oo Soomaaliyana waa lagu dilay, meelo kalena waa looga dilay oo waa jira. hub khaasa waaye, qolaana iska leh, macruuf waaye. hub iska fakada maaha, hub oo maaragtay yani wiifta ma leha, waa muqasad waaye. waxa weeyaan waxaana kala garanayn qofka waxa waa macruuf waaye. laba qof oo isla fadhida ama baabuur ku wada jirta, qofna dilhayaa qofna uusan maaragtay oo ka tegahaya. marka waxaana kala garanayn in DNA lagu xiro, in telephone lagu xiraana kala garanayn. laakiin wax badan ama Soomaaliya ka dhacay, meelo kalena waa ka dhacday sida Ciraaq iyo maaragtay baalkii muxuu ahaa. ninka hadda oo arrintan oo igu baraarujiyeyna waa ku mahadinayaa, oo ninka la yidhaahdo Cabdi Naasir Ismaaciil yaraha ka dhegaysta warka igu baraarujiyey. inaga hadda xoogaa yaraha iska xanuunsanaayeen, marka dhegaysigu waa igu yaraa. marka asaga maaragtay aan warka ka helay asalkeedii. marka hubkaasi yani waa hub la yaqaano waaye, qolaana leh. marka hub oo iska fakan kara maaha, hub la yaqaano meel ujeeda leh oo wax weeyaan loogu talagalo waayo. meesha lagu ridaayo waa loogu talagala. marka qaabka inuu maaragtay inuu laser ahaan inay tahay, adigu laser xataa hadduu yahay dadka kale waxba uu yeeli kari lahaa meesha jooga, laakiin waxa weeyaan waxbaa maaragtay kolleyba qaabaa ugu xiran yahaa jira. marka haddee ilaahay waa iska sahlay maanta yani hubka iyo qaab samayskiisa iyo dadkii iyo de maaragtay bahalkii maxay ahayd bahashaan oo bahalkii maxay ahayd khaliyada iyo maxaa la jiray in xataa lagu xiro waa wax suuragala waaye. ilaa bani aadamkii iyo maadadii maarata hadda waxaa ilaahay maarata wuxuu u sahlay in maarata yani si la iskugu xiro ayaa iska sahlanaatay. yaa iska sahlanaatay. marka qofkii yani waa lagu ridayaa, qofkii loogu talagalo ku dhacayaa, waa dilayaa, qofkii la fadhiyana ma taabanayo. oo qarax maaha.
maaragtay yani oo qarax inta fida maaragtay dadkii kala gaaraya ma aha waa qofaa loogu talagelaa qofkii dilayaa qofkii kalena ma taabanayo la fadhiyey baabuurta iyo maaragtay makhaayadaha iyo kulli saas waay waa qolaana iskale oo macruuf waaye waa la yaqaan marka yani waxa dee aan ahayn in oo dadka bahalkii maxay ahayd dadka ama qiyamka u leh ama qiimaha u leh laga magacisiyeeyo ama la isleeyahay waxbuu ama uba dadka u qaban karaa ama ou idin dhibi karaa labaduba waa ku jirtaa meesha inuu dadkii wax u tari karo iyo inuu wax ka dhibi karo maaragtay qolo wax ka dhibi karo labaduba waa loogu tara waxaase ugu daran yani dadkii waxbuu u qaban karaa taasaa ugu daran taasaa wax ugu daran marka intaas marka waxaan leeyahay maaragtay kiiskaas in lagu baraarugsanaado meeshaana waxa weeyaan niman yahow waxaa jirta amniga la sheegaayo oo laleeyahay amniyaa la idiin qabanaya niman yahow amni ma ahan amni ma jiro amnina ma aha yani masaa'il waa iska jiraa yani dadka lo iskaga qadqatalo oo maaragtay yani de ninku meeshii uu joogo isaga laftiisu inuu yidhaahdo waxbaan ka qabtay laftiisu waa iska macruuf waay laakiin kiiska amni meeshaan ma jiro amni meeshaan ma jiro ummaddana waxa weeyaan waxbaa la idiin qabanayaa maaha amnigu waa wax ayaga dan u ah waay amniga ay sheegayaan waa mid ayaga dan u ah mid annaga dana noo ah maaha ayagu dan u yihi bas ayaga wixii dan u ah ayay amni u yaqaani mithaalka yarkaahoo fahmi kartaana waagii maxkamadaha wa waxaan ku idhi nin la odhan jiray louis michel waxaan ku idhi haddii aan mabdi'iina ku qaban lahayn nobel baraysan siin lahayd aadna siin lahaydeen baan ku iri laakiin hadda maarata maadaama mabda' kale ku qabanay oo maaratay aan kiina ahayn saasaad col aada noo colaadinaysaan noola diriraysaan saasaan ku iri mar xamar noogu yimi soo ma jeedin marka waa saas waaye amniga waxay u yaqaaniin bahalkii maxay yahay midkay ayagu rabaan waay midka ayagu rabaan midka kale ayaga fawdadaa uga roon marka amni aysan maaragtay danu ahayn ama aysan ayaga keenin ama aan ayaga kiiskooda maaratay yani mabda-ooda lagu keenin ayaga amni uma ahan amni uma aha ayagu qaabka marka ay ummaddaas la rabaan qaab ka duwan qofkii maaragtay bahalkii maxay ahayd keenana ayaga ma aha kiiska marka aan rabo inaan baraarujiyo kan waaye marka gabadhaas iyo maaragtay bahalkii maxay ahayd ahalkeediina allah ka sabar siiyo iyadana allah maaragtay insha allah allahu naxariisto un qof inay maaragtay yani maaragtay kolley inta uun laga yaqaano qof maaragtay yani kolley lagu hubo inay salaadeedana tukanaysay maaragtay diinteedana haysatay dadkan hadda dibadda jira dhib badanaa ka jira oo dad badanaa maaragtay dee aniguba aan arkay oo maaragtay yani markay ugu yar yihiin maaragtay waswaas laga geliyay diintoodii markii kalena hadda kaba baxay intaba waa jiraan laakiin maaragtay bahalkii maxay ahayd markii aan xog weydiiyey marka qofkii qof maaragtay muslima inay ahayd amaba ay yihiinba caruurtu hadda waa kolleyba inay 3 yihiin aan umalaynayaa inay fiican yihiin alla iigu sheegay oo maaragtay yani dadka hadda maarata xoogaa magacyadan xoogaa ka shakiyey laakiin magacyada meelahaasaa laga ergistaayo talyaaniga iyo dadka maarata xiriir la lahaa odagii iyo waa iska dhici kartaa maogta magac waa iska dhici karaa laakiin hadda maaragtay yani waxa oo wanaagaha la iiga sheegay maaragtay caruurta gabar hadda mid kalena waa tala leeyahay maaragtay waxay u rashaxan tahay in nobel prize la siiyey u rashaxantaha waa tala lahaa marka dee waa saas waa dhici kartaa marka waxyaalahaasna hadda oo kiiskaas wadeed wax hadda dadka maaragtay lagu eedeeyo maahan duruufaha jiraa sida iska ah marka insha allahu tacaala hadda anaguna dadkan soomaalida waxaan uhaysanaa waxaan usahnay inay maaragtay bahalkii maxay ahayd muslimiin yihiin 100% qofkii ka baxaa isagaa ka baxay
kama mid aha soomaalidii kama mid aha soomaali waa muslim waa baxti waa muslim waana sunni waay macruuf waay marka insha allahu tacaala intaasaan rabay inaan kusoo gooyo ilaahay maaragtay wixii naga dhintana allah noogu naxariisto wixii noolna ilaahay noo nabadgeliyo inta yada kalena ilaahay subxaana watacaala ilaahay haysukaayo soo celiyo ilaahay haysukaayo soo celiyo isagana ilaahay hanoo soo celiyo annagana ilaahay haysukaayo soo celiyo ilaahayna maaragtay cadowga nagu dhex jiro maaragtay ama dabadda nagaga jooga ama daakilka noogu jira oo annaga uun dhibka iyaga ka shaqaynayaan ilaahay hanooga gargaaro allah hanooga gargaaro allah hanooga gargaaro asalaamu calaykum waraxmatullahi